iyadoo maalnimadii shalay ahayd dibadbaxyo lagu soo horjeeday go'aanka dowlad deegaanka Soomaalida iyo dilkii loo geystay xildhibaanad ka tirsaneed baarlamaanka dowlad deegaanka ayaa waxa arintaasi ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Mustafa Cumar Wariyana Maxamed Ibrahim ayaa warkan mar kale inoo faafahinaya. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa bartiisa Facebook soo dhigay qoraal uu kaga jawaabayay rabshadihii xigay dilkii xildhibaan Juweeri Subcis loo geystay garoonka diyaaradaha Jigjiga ayaa dibadbaxyada ay dadka dareenkooda ka cabireen ku tilmaamay wax lagu dirsado. Uu ku sheegay dibadbaxyadaani inay ka turjumayaan soo noolaanshaha damiirka shacabka deegaanka, isagoo dhinaca kale dadka isku soo baxay ku dhaliilay qaabka ay ku wajaheen arrinta iyo sida ay u falceliyeen. Inta marka laga tago dooda gacmadaaliska ah ama lugooyada ah in dadka lagu weerariyo ma aha kow hay'adaha federaalka naga baxaan, waxaa ka haboon hay'adaha federaalka aan galno oo aan wax ku yeelano. Hay'adaha ammaanka ee dalka aan jaarka nahay ee Kenya maanta cid ugu sareysa xukunka waa wada Soomaali, ayuu yiri madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cumar Cagjar.